gudoomiyaha degmada Togwa Jaale taliyaha saldhigga Wajaale oo kaashanaya ciidanka booliska magaaladaasi ayaa howlgalla ay sameeyeen waxay ku soo qabqabteen khamri fara badan iyo dadkii sitay gaadiidkii lagu sidayba waxaana kamid ahaa dadka khamriga lagu soo qabtay nin sheekh iska dhigaya oo xidhan khamiis iyo cumaamad iyo waliba weyse garabka oo caanka ku ahaayeen culimadii hore isagoo waliba garkana la baxay waxaana xukun ku riday maxkamadda gobolka Gabiley maxkamaddu waxay ku xukuntay Eedeysane Xuseen Axmed Yuusuf ina xarwo xirsi day station la xibadinjir 3 sano xarig ah iyo 3 milyan oo ganaax sidoo kalena waxa arintani ka hadlay gudoomiyaha degmada Togwa Jaale taliyaha qaybta Gabiley gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiley iyo wakiilka xeer ilaalinta gobolka Gabiley anigoo ah gudoomiyaha degmada waxa bartan uga digaya mar labaad uga digaya noohooyinkan waxaan ka soo saari doonaa sharci adag ayaan ka soo saarnaa digniinna waxaan xaggan uga gudbinayaa dhammaan dirwalada noohooyinka wata hadhow tolaha calaacalan Togwa Jaale noqon mayso hoyga looga soo mastaafuriyo khamriga iyo darooga looga soo mastaafuriyo cumaamad la wuusti khamiis la wuusti sheekh wuuska laptop ragcanta ku soo qaad waa ka boorsadina laptop iyo khamiiskaas wuusti wuxuu iska dhigay sheekh wanaagsan oo dadka wacdiyay waa ka weysad cumaamadii waana nin weyn oo garhka sucad yahay oo garhkiina uu la baxo sidii culimada ay garhka la baxa ciidanka biliiska waxaan ku baraarujinayaa inay baaraan kuwa culimada ceebeynaya koodii iyo eedoodii oo dhammaystiran booliskii xafiiska xiraalintu maxkamadda u soo gudbiyeen isla maantana aan xukunay waxa lagu xukumay 5 xukun sane midkiiba waxa lagu xukumay 3 sanadood oo xadhiga iyo 3 milyan waxaan kan naqbalaaro ka soo jeedinaya ciidanka booliska ee gobolka Gabiley waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidanka booliska gobolka Gabiley oo si hufan uga howlgala gobolka gaar ahaan ciidanka Wajaale ee ku guuleystay khamriga xeelada khatarta lagu qarinayay sidii ay ugu soo guuleysteen iyo dhammaan bacidii ka qayb qaadatay howlgalka lagu soo qabtay khamriga uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada Wajaale aad magaaladani Wajaale oo ka kooban 2 daamood ayaa khamrigu dhinacna uu fasax ka yahay dhinaca kalena uu mamnuuc ka yahay qiyaas isku jirta 200 mitir Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley